أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ninka ugu dambeeyay oo nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam la joogay isagoo adduunkan korkiisa ku nool wuxuu ahaa aabaha qabiilka Sheekhaal dhalay Cabdurrahmaan bin Abi Bakr Sidiiq haweenkana waxay ahayd walaashiis isku hoobiyo isku aabiyihiin السيدة عائشة عليه السلام هوينت النبي صلى الله عليه وسلم ابن إسحاق وحيري عائشة وحيتري رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل المسجد فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده مسواك أخضر قالت فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده قالت فقلت يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك قال نعم قالت فأخذته فمضغته له حتى لينته ثم أعطيته إياه فأستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط ثم وضعه ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة قالت فقلت خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق قالت وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم markuu maalintaas masjidka ka soo laabtay rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu ku jiifsaday laabteeda oo madaxiisu saaray inta u dhaxaysa galowgeega iyo laabxunshadeeda markaas waxa ii soo galay nin qoyska Abubakar kamid ah oo gacanta ku sita rumay cagaaran markaas rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninkaas gacantiisa fiiro aan ka gartay inuu cadayga doonayo markaas waxaan ii rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam ma jeceshay inaan cadaygan ku siiyo wuxuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam yiri haa markaasna cadayga qaatay oo aan calaaliyay oo aan jilciyay kadibna aan sallallahu alayhi wa alihi wasallam siiyay gacanta u galiyay oo ugu cadaday sida ugu xoog badan intaan isagoo cadayanaya arkay kadibna wuu iska dhigay waxaan arkays inuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam laabteeda ku culusaanayo markaasaan wajigiisa fiiriyay waxaan arkay inay indhihiisu taagmeen una yiri bal rafiiqa sareeya ee jannada markaasaan waxaan iri wallahi waa lagu doorsiiyay markaasad dooratay waxaan ku dhaartay midka runta kugu soo diray markaasuu rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa alihi wasallam ruuxiisa la qabtay ninkaas wuxuu ahaa Cabdurrahmaan bin Abi Bakr as-Sidiiq rumaygaasna wuxuu ahaa waxa ugu dambeeyay oo afka rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam u galiyo